على آله وصحبه وسلم waxaa saaka aanu isugu nimid gudidii gurmadka qaran ee fatahaadaha oo arkaysaan hadda hareer taagan shir dheer oo aanu kaga hadalnay ilaa hadda wixii noo qabsamay xaaladda ku qiimeynay ku talagalka iyaga waxaanu qaban doono insha Allah mustaqbalkana kaga hadalnay annagoo ka duuleynay inaanu fulino hawlaha noo horyaal waxaa khamiistii subaxdii hore wafdi ku baxay aniga xildhibaano wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo Sheekh Yuusuf Cali Caynto oo aanu ku tagnay Hirshabeelle ku tagnay Beledweyne maamulkii la kulanay hay'adaha caalamiga iyo ciidamada AMISOM iyo qolihii ka wada shaqeynayay dhamaantood madaxweynaha maamul gobolka Hirshabeelle Mudane Waare aan la kulanay waxa kale oo nagu heliyay iyagoo ka jawaabaya baaqi xukuumaddu ay jeedisay safiirka Turkiga iyo wafdi la socday hay'adaha TIKA iyo bishacaas ee Turkiga iyo safiirka Qatar oo ay helinaysay Qatar Charity waxa noo suurta gashay inaanu indhaha iyaga ku soo aragno dhibaatada dhacday wabiga sidoo ugu fatahay ugu aafeeyay magaalada Beledweyne iyo dhibaatadii ka dhalatay barakac ahayd wixii karaanka iyaga iyo dadaalkayagii waxaan madaxweynaha ku wareejinay deeqdii intaan ururinay oo gobolka Banaadir khaas ahaan intii uu ku tarsaday oo ahayd $100,000 oo loogu talagalay gurmadka dadka tabaalaysan sidoo kale 5,000 oo qoys ayaa wadamadeena saaxiibka nahay Turkiga iyo Qatar ay raashin qaybin u bilaabeen oo annagu wax ka qaybinay aafooyinka ka dhashay ama ay tahay laga hortago ka dhalan kara warbixinta ku qaadayna waxa kamid ah in arrimaha caafimaadka waliba kaneecada iyo shubanada ka dhalan kara biyaha waxyaabaha loo baahan yahay si culus looga hortago waxa jira meelo aan ilaa hadda biyaha fatahaada awgeed gaadhidii ay adag tahay laakiin aan ka shaqeynayno oo dhinaca kale ee magaalada ah iyo meelo go'doon noqdayba laakiin iyagana aan rabnay inaan gaadhno maamulkiina kala shaqeynno haddana ay ka shirayaan iyo hay'adihiiba Beledweyne waxa noo jooga oo aan kaga nimid wasiir ku-xigeenka gargaarka xildhibaan Farxiyo iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo wafdiga iyaga ka tirsanaa laakiin la shaqeynaya maamulka Hirshabeelle madaxweyne Waare iyo maamulkii la shaqeynayay hay'adihii iyo cid kasta oo ka gacan ka geysanaysa fatahaada sidii looga hortagi lahaa intaasoo kaliya kuma koobnayn waxa kaloo iyadana aan kaga hadalnay shirka saaka sidii aan ugu gurman lahayn meelaha kale oo dalka uu aafeeyeen fatahaadaha wabigu iyo daadadkuba gaar ahaan wabiga Juba oo ku fatahay baar dheere luuq iyo doolow iyo fatahaad roobab ka dhashay oo ceel waaq ka dhacay waxyaabahaas oo dhan annagoo ka eegayna dalka guud ahaan guddideena ay u xil saaran tahay oo ay tahay guddi qaran oo ka hortaga iyo gurmadka fatahaadaha khaasatan in loo gurmado dadka tabaalaysan ee waxyeelada u geystay waxay dawladdu mar labaad hore waxa ogeeyeen in $1 milyan dawladdu ku baaqday oo fatahaadaha loogu gurmanayo fatahaadaha cusub oo ka dhashay baar dheere iyo luuq iyo iyadoo aan meelaha waajibaadku naga saaran yahay ay kamid tahay dalka guud ahaan waxay dawladdu mar labaad ku baaqaysay ay qoondaysay bixin doontaa $500,000 oo dheeraad ah oo lagu daraayo $1 milyan ee hore fulintiisii iyo sidii dadka tabaalaysan loo gaarsiin lahaa iyo maamulkiisii iyo nidaamkiisii oo dhanna maanta waa dhameystiraynaa waxay dawladdu u taagan tahay mar walba tamartu meel kastoo ayna dhigto in aanu iskaashano shacabweynaha Soomaaliyeed culimada bulshada rayidka ka wada shaqeyna sidaynu ugu gurman lahayn dadkeena tabaalaysan ee ay marba waxyaabaha dabiiciga ka dhashay daadadka abaaraha ay ku dhufanayaan ilaa hadda Ilaahay idinkiisa meel wanaagsan bay wax marayaan waxaanu shacabweynaha Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay gurmadka ka qayb galaan sidii shariifka ahayd ee wanaagsaneed ay uga qayb galeen 14 Oktoobar iyo gurmadkii abaaraha kaalintii fiicneed ay ka qaateen ay ka qaataan in guddidu ay hawsha fuliso marnaba duruuftu meelayna dhigtaba ka tanaasuli mayno waxa bari aan ku tala jirnaa
in beledweyn ay u baxaan qayb guddida ka mid ah haddii ay saamaxdo duruufta madaarka oo ay geeyaan daawooyin marakaneeco iyo baco ay dadku ka jirsadaan inta ay guryahoodii si uun loogu hagaajinayo ay u hagaagayaan ama ku noqon karaan waxaa kaloo aan ku tala jirnaa in wafdi kale uu baxo Baardheere waanuna ka shaqaynaynaa taabudheeda intaasaan kusoo koobaya waxaa laga baxayaa Sheekh Bashiir Axmed Salaam